saacada aan taaganahay maadaama aan gabadhahay garoob aan ahay waxaan garab taaganahay ninka intaas oo dhan waqtiga soo bixiyay maxaa la dhahaa waqtiga la soo qaatay soo dadaalo laba qof oo suuqoon isku keenay waxaan ma rabaa haduu ilaahay raali ka dhigo inanka wariyaha yaan ma rabaa saaka ina lagu daro. Assalaamu calaykum soo dhaw daawade meel kasta adduunka joogtid caawa waxaan idin hayaa fiideo aad xasaasi u ah sidoo kale geeyga Soomaalida iyo baraha bulshada aad u haysta. fiideogaas muxuu yahay waa haweeney dhowr kiiloomitir uga timaaday si u heli lahayd ninkii ay nolosha la wadaagi lahayd ama ay jecleed. wuxuu ugu jawaabay fiideoga kaga bogan doontaan inta ka horeysa halka iga daawanaysid waa page-ka Facebook aan ku leeyahay DS Ali aniguna waa DS sidoo kale asxaabta page-ka follow noo saara fiideogan aad daawanaysidna like saar siina share gare si asxaab qurux badan oo sidoo kale aan u helo. sidoo kale fiideoga waxa ka daawanaysaa YouTube-kayga DS Ali YouTube-ka fadlan subscribe noo saara like na noo saara fiideo aad iyo aad ba u mahadsantiin. haddaba fiideoga aan ka bogano aniguna maanta saacada aan taaganahay maadaama aan gabadhahay garoob aan ahay waxaan garab taaganahay ninka intaas oo dhan waqtiga soo bixiyay maxaa la dhahaa waqtiga la soo qaatay soo dadaalo laba qof oo suuqoon isku keenay waxaan ma rabaa haduu ilaahay raali ka dhigo inanka wariyaha yaan ma rabaa saaka ina lagu daro. wariyaha sheegaysa waa sidii waxa weeyaan maadaama dadaal badan soo qaatay waa ay wariyaha waxa weeyaan kulli wadi hortaagantahay wariye maarigan baafuro maadaama qof laadana inaan waa dad xitaa laba leedo waxaan ugu talagalayaa inaan ugu sadexayso anigu diyaar ban saaka oo ahay. horta marka hore fiideoga xaggan idin kaga muuqda asxaabta aan warka ka hayn aan idin abid gareeyo. fiideogan wuxuu ka hadlayaa nin wariye ah oo wiilay gabadh dhalinyaro isu keenay ugu dambeynna kalifay inay isguursadaan oo waalidiintii labada dhinacba isu ogolaadaan. sheekadu markii halkaa maraysay baad saad fiideo ka arkayseen haweeney waxaa timaaday garooba oo leh anigana ninkaas haligu cimaamado oo ninkaas baan u baahanahay in lagu daro. marka sheekadu sidaas u dhacday. waxaan filayaa fiideogan dhammaan ragga commentiga waa ku rafan doontaan idinku idin qoseeya fiideoga waa fiideogeeni. dumarka laakiin waxaan leeyahay fiideogan daawada un baa ka tihiin banaankaas ka joogtaan laakiin fikirkaaga way dhiban kartaa oo commentiga waad imaan kartaa. okay marka gabadhaas waliba waxay kale oo ay raacisay ninkaas wayba ogeydba noloshiisa laba xaasla inaad tahay waan ku ogahay aniguna saddex baan ku noqonayaa oo anigaaba diyaar u ah bay tiri waa gabar cimaamadeeda aan la haysan karin. marka fiideoga intaa un buu ahaa isir asxaabta la wadaag wixii fikirkaaga ahna commentiga nagula wadaaga raggan ka hadlaya. dumarku mar labaad waxaa idin leeyahay banaanka ka joogtaan fiideogaas inta fiideo kala mid kulmana asxaabta waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum ciao ciao.